hadda wishkan saaranahay hawsan oo degayna kadib toosan uga baxayna ilaa aan ka gaarno destination-kan u socno oo ah xeebta Lido. Waxa waxaan rabnaa waxyaabo badan oo aad ajaa'ib u ah inaan ka soo gaarno xilli dheer ka hor aan ugu dambeysay. Aragno. Okay, hadda waxaan saaranahay bajaaj. Waxaan maraynaa argada lambar 4 si aad u jeedin waa albaabka sayidka. waxaan toos hadda ugu soconaa xeebta. السلام عليكم. شباب داوانيسين وعاشر برو. هدي أنت أمريكي كبور إذا صوب وقته ما تروح نشوفنا حبط الليرة. إن هذا بيهان كبقى وحصلي أمريكي كويسة. إلوي وحن شوفنا الليرة. شباب داوانيسين وعاشر برو ما تروح صوب وقنا حبطة. مدة كمقنا نصيب حاول يا شيء. دي بناوي ماله واحد بدنا كوجا. كنت نور شهر عند معين أنقرة لكن ما كبقى. أيوة يديني صوته. عليكم بقى فاهم كده. alright. waxaan moodaa galabta inay tahay badda mid aad u kacsan. dhowr jeer waxaan isku dayay dadka aan weydiiyay waxay ii sheegeen badda way kacsan tahay marka fadlan ha gelin. marka anyway hadda waxaan joognaa Lido waa u jeedaa sida u shidan tahay. dadkana waxaan moodaa meelaha ugu wanaagsan ay ku qaataan waqtiga inay kamid tahay magaalada Muqdisho. runtii way tahay leerta toos uga soo dhacdo badda adiga mooyee cid kale kuma soo abaarayso. marka waa fresh oxygen ajaayib ah waaye anigana waa ka helay. waxaan jeclahay in la caawo inaan joogo meesha si aan ugu nasto maskaxdana ugu dajiyo. marka ku soo dhawaada Lido. waxaan toos ugu soconaa wadada Xamarweyne. waxaan toos ugu soconaa wadada Xamarweyne. wadada muddo ka hor ay ugu dambeysay. runtii weyn oo caadi ahayn ka muuqda. inaan waddo markaa eegto saa u jeedin waxay noola muuqataa inay badda aad u kacsan tahay galabtay. bulshadana waxay moodaa inay ayadana aad u yartahay. qof walbo magaalada magac ku leh ama bulshada magaaladaba waxay jecel yihiin galab walba inay halkaa yimaadaan si ay waqti ugu qaataan. anagana dadkaasaan ka mid nahay. maxaa noo dhiibay dadkaasaan ka mid nahay. saa u jeedin doomahaas waa doomaha kalluumaysatada isticmaasho ayagana xilligii nastiladay ku jiraan. inkastoo lii sheegay habeenkii inay safraan oo ay shabaagaha badda gudaheeda u dhigan ay ka soo war doonaan. dhowr jeeraan damcay inaan ka baxo wadda intaa laakiin biyaha darteed waa mari waay. marka waxaan jecelnahay hal mar inaan arko si aan u tijaabiyo inaan mari ka dhigin kale. والله waa ka xumahay waxaan isku dayay inaan maro xagga si aan wadadaas iskugu dayo laakiin way suurtageli weysay anigana waa qoyay. marka waxaan ku qasbanahay inaan wadada dhinaca kale ka wareego si aan xagga dambe u tago. wax kale maaha galab walbo badda sidaanoo kale u kacdaa maxaa yeelay waa galabkii xilliga labada xilliya isbedelaya sidaa darteed waa xilligay kacaysa hadda galab gaabka.
حاجة مرة لكن هو مري واقوي anyway waxaan moodaa hadii ay aad u kacsan inay waqti ku qaataan intii weyn istaagna waqti ku qaataan marka dhinacood caawda toos uga imaanaysa badda waxaad ka dareemaya qalbiga sida aniga uga dareemo deganaanshaha aan dareemayo xilligan xagga aan taaganahay filan dog inaanan dareemin waxaa laga yaabaa wejigayga inaan ka dareemayo waxaan rajaynaa inaad fiidiyowga ka bogan doontaan waxaan jeclahay inaan hore u socdo iyo caawda aan si fiican u qaato waqtigayga wanaagsan aan si wanaagsan u qaato marka ciao sida horeyda kugu sheegnay meeshan habeenkii way ka shidan tahay maalintii bulshada sida ay u buuxdo sida ay waqtiga ugu qaadanayaan runtii waa waxa faa'iida xaggaygaas hore waxaa safar kuraas oo loogu talagalay bulshada inay waqti ku qaataan waxaan jeclaan lahaa inay idin tuso kuraasta xaggaas taala taa waxay idin tusaysaa dadka inay u baahan yihiin meelo ay ku nastaan bulshada xilli walba maalin ha dhigin habeen ha dhigin waqti walba waxay jecel yihiin bulshada inay qaataan waqtigooda si nadiifna ay ku qaataan gaar ahaan markaad xeebaha joogtidna way ka duwan tahay mararka kale aad meelaha kala joogtid maxaa yeelay xeebaha adigana aad ogtahay anigana aad ogahay inay yar tahay meelo kale sidaas looga helo neecawda maxaa yeelay neecawda toos uga timaado badda gudaheeda qofka ugu horreysay ku dhacaysa waa adiga sida aan dareemayo maanta iyo nasiinada aan dareemayo runtii muddo ma arag taa waa waxa uu taalada igu reebtay oo ilaa iyo caawa aan ugu tegi lahaa inaan joogo xeebtaan waqtina aan ku qaato anigana ma ahi bulshada oo dhan waa sida bulshada kaa daawanaysin waa Hajir Pro sidoo kale beejkeena Facebooka isla Hajir Pro ku qoran waxaan jecel lahaa inaad beejkeena Facebookana noo like gareyn doontaan oo xaggaa nagala socon doontaan waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada magaalada Muqdisho xilliga ay tahay fiidnimadii waa fiidnimo maalintana waxay tahay waa maalin Arbaca waxaan idin leeyahay welcome to Muqdisho